أرضي بانها يو أرضي بانها يو وبحي ودن كانها يو أرضي بانها يو أرضي بانها يو وبحي ودن كانها يو وحان ورديا دكسي ذو آذى وحان ورديا دكسي ذو آذى إينا أقن كورسالو دالكيغا أنفعي إينا أقن كورسالو دالكيغا أنفعي داذا الكي لا يمذي الله يو إيقرقان آمين آمين إله يو إيقرقان آمين آمين داذا الكي لا يمذي الله يو إيقرقان آمين آمين إله يو إيقرقان آمين أرضي بانها يو أرضي بانها يو افتنكي أروريانها يو أرضي بانها يو أرضي بانها يو افتنكي أروريانها يو وحان ورديا امتحان وقلا وحان ورديا امتحان وقلا إنا نبي هويو أبال كودي كودي إنا نبي هويو أبال كودي كودي waxaan u yeeraynaa maamulaha dugsiga Maxamed Jaamac dhammaan bulshada oo dhan waan salaamayaa rag iyo dumarba isimada cuqaasha nabadoonnada abwaanada iyo aqoon-yahanada hooyooyinka dhalinyarada iyo ardayda intaba waxaan idinku salaamayaa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh anigoo kuna hadlaya afka maamulka iyo macallimiinta dugsiga hoose dhexe ee Xaaji Jaamac magaciigu yahay Maxamed Jaamac Awil waxaan insha Allah taala halkan ka soo jeedin doonaa iskuulkan caawa xafladda ka dhacaysa sababta ay daaran tahay inay tahay ardayda ka qalin bedelanaysa oo ka gudbaysa fasalka 8aad una gudbaysa fasalka 10aad ee 9aad ee secondary-ga dugsigan magaciisa waxa lagu magacaabaa dugsiga hoose dhexe ee Xaaji Jaamac waxa uu ku yaalaa magaalada Yaka dugsigan waxa la aasaasay maalin Arbaca ah taariikhdu ay ku beegan tahay 8 bishii 8aad 2018 dugsigan wuxuu soo maray marxalad aad u badan dufcadan hadda ka baxaysaahi waa dufcadii ugu horeysay ee ka qalin jabisa dugsiga hoose dhexe ee Xaaji Jaamac waxaan jecelnahay insha Allah taala inta ay in ka badan inaan ka sii badino dadaalka walow dadaalka iyagu iska yar yahay waxaan jecelnahay in xafladda ku xigta ay si qiimo badan u dhacdo hadii Ilaahay idmo waxaan marka insha Allah taala ka codsanaynaa dhammaan waalidiinta ka soo qayb galay xafladda ilmahoodu meesha ay dhigtaan in ay ku dadaalaan oo ay adkeeyaan waxbarashada ubadka macallinku dhinac buu ka taagan yahay waalidkuna inuu dhinac ka istaago waalid waa sumcadaada waa sharaftaada waa karaamadaada waa magacaaga waa maamuuskaaga in aad ka warhayso aqoonta ubadkaaga haddii kale ubadkaagu waxay noqonayaan ubad baadiyooba oo bahalku uu darbiyada ku cuno yani waxaan ula jeedaa inay noqonayaan darbi jiif maxaa la daroogada isticmaala hadhowna cawaaqib xumada ay dhasho adiga ay ku hoostaan rahmatullahi wa barakatuh maamul aadan ku salaamayna waxaan u yeerayaa gudoomiyaha tuulada Mustafa Yaasiin isaguna si uu u soo jeediyo kelmadiisa aad bay sharaf iigu tahay inaan kala soo qayb galo xafladan quruxda badan aan ugu mahadcelinayno ciddii soo abaabushay soo diyaarisay soo qaban qaabisay aan leenahay aad badan mahadsantihiin waxaan kaloo aan bogaadinaynaa xafladan ardayda loo dhigay ka qalin jabisay fasalka 8aad una gudbaysa dugsiga sare iyaga waxaan kula dardaarmaynaa in ay yihiin hormuudkii ugu horeeyay oo iskoolka u gudbay oo u aaday secondary-ga
ardayda waxaan leenahay waxaan idinka rajaynaynaa inaad ahaataanin ardayda kale u horseeda meel wanaagsan iyo meel ay ku hirtaanin iyo meel ay ahaato inay hindisaanin oo ay gaaraanin oo aad waxbarashadiina aad sii wadataanin ardaydan aad moora gelisaanin insha Allah wal rajaynayo inaad noqotaanin in aad waxbarashada ka sii wadaanin oo aad deegaanka dadka baad anfacdaanin annaguna waxa ilaahay ka rajaynaynaa in oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu garab istaago inuu fududeeyo inaad waxbarataanin idinka kuwa kale insha Allah waxbaranaya dhamaantoodba baan rajaynaynaa waxaan kaloo aad u bogaadinayaa iskoolka Xaaji Jaamac macallimiintiisa iyo maamulka oo dadaalayay waqti iyo marxalad kala duwan soo maray oo dhabar adeegay inay waxbarashada ay gaarsiiyaan meel tayo leh oo aad u sareysa waxaan leenahay dadaalkiina aad wadeen waxa la rabaa in sidii laga sii laba jibaaro waaridka iyo guddigii iyo aadka waqtiga u soo galiyana waxaan leenahay waad mahadsantihiin markii aan hala ku daayo inta ku daayo runtii iskoolka waxaan rabaa inaan bulshada meeshaas ugu timi xafladda in aan ku sii dheerigeliyo oo aan yiraahdo waxa la rabaa dhammaan reer yaka waxa socda barnaamij isdiiwaangelin ah oo ah qof kasta oo xaq u leh inuu isdiiwaan geliyo oo qofku xaq dastuuri ay tahay qofku inuu codeeyo qof kasta inuu xaqiisa u ka faa'iideysto deegaankana uga faa'iideeyo deegaanka waxa u tahay in la isdiiwaan geliyo waxa u tahay muhiimad aad u weyn waayo wuxuu yeelanayaa lambar uu kaga hormaro deegaamada kale ee la midka ah ama uu ka waaweyn yahayba marka waxaan rabaa in la isdiiwaan geliyo aad baan ku ta'kiidinayaa waxaan kaloo rabnaa in aad u baraarugsanaataan barnaamijka maanta loo dhaqaaqay oo ah horumarka iyo in dimuqraadiyad loo dhaqaaqay in aad la jaan qaadaanin oo aad diyaar u ahaataanin oo aad fahantaannin oo aad ka faa'iideysataanin barnaamijkan waxaa looga faa'iideysanayaa si shakhsiya maaha waa si guud in reer yaka oo dhan isku dan weeye in dantooda ka wada faa'iideystaanin horumarka iyo arrimaha bulshada ee deegaanka ka socdana in hore loo sii qaado oo hor loo sii dhaqaajiyo oo si wadajir looga faa'iideysto oo si wadajir loogu howlgalo inta ayaan ku ta'kiidinayaa dhammaantiin waxaan leeyahay assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh waxaan ku xujinayaa hadalsiinta iyo kelmad soo jeedinta xafladda iskuulka ardayda ka qalin jabisay Xaaji Jaamac Primary School إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أولا نحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضل العلم يتبين من وجوه الكثيرة منها أن العلم أصل المعرفة الهدى وبالهدى ينجو العبد في الضلال والشقاق في الدنيا والآخرة قال الله تعالى فمن اتبع الهدى فلا يدل ولا يشقى فبالعلم يتعرف على أسباب رضوان الله تعالى وفضله والثواب العظيمة في الدنيا والآخرة على ما سلم به من سخط الله وعقابه منها أن العلم أصل كل عبادة وبيان إن كل عبادة يهدي العبد لا تقبل إذا خالصة الله تعالى صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة ذلك تستدعي قدرا من العلم ومعرفة ما يحبه وينكره إجمالا تفصيلا لا تكون إلا بالعلم فتبين أن العبد تعرفه أن العبد أصل معرفة الهدى أصل المعرفة الهدى عز وجل تقرب إلى الله عز وجل إلا أن يكون أصل التقرب الهدى منها أن العلم أصل يدعو به كيد الشيطان وما يدفع به كيد أعدائه والفتنة التي تأويل في اليوم الآخر منها أن العلم تعالى يحب الله تعالى في العلم العلماء وقد مدح الله العلماء ورفع شأنهم هذا وشأنهم وألزامهم منها أن العلم يرفع العبد بربه عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى.
بسم الله أنا مقعد فاطمة فارح أحمد وحكو بلابيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مقعد هاي فاطمة فارح أحمد ودكتور دكتور حات سامع وحالك قصة شادين يا موضوع يا كسابسن أقونته. aqoontu waa horumarka ummadda aqoontu waa shayga kaliya ee aan ku hanan karno qulubta ummadaha aqoontu waa faynuuska ama nuurka iyo iftiinka ummaduhu kaga baxaan jahliga aqoontu waa habka aad ku ogaan karto xaqiiqada dhabta ee taagan aqoontu waa habka aad ku kala saari karto saxa iyo khaladka aqoontu waa iftiinka nolosha ama furaha nolosha gabiya ayaa gabaygiisa waxa uu ku yiri taariikhdu waa shay dunida laga tixraacay tagto iyo midii taagan iyo tan ugu soo foole inta badad baa tabiyo laga tibaaxday aqoonyahanku waa tiir aan tan ku gaarnaaye tiknoolajiyada aragtay laga taxaashayo waxa aad lagu tababarto nolosha taabaya tacliin hadii aysan jirin tacaddi soo maahan aqoonyahan tijaabiye ayaa tiigsado helay tacliin hadii aysan jirin tacaddi soo maahan tafsiirka kitaabka diinta nagu toosiya tiirka islaamka iyo sharcigana la ku taageeray aqoonyahanku waa tiirka islaamka iyo sharcigana la ku taageeray aqoonyahan tijaabiye ayaa taabtay oo wadaya tacliin hadii aysan jirin tacaddi soo maahan oo ka qalan jibisay fasalka 8aad oo Santaleeska u gudbaysa ardayga Ingiriiska isagoo akhrinaya waxa waaye waa Farxaan Abdi iyo Zainab. I would like to greet all the teachers and all the students of our school's classes. I would like to present a topic education. Education is gathered fact and information knowledge. So a person defines what is suggested people from analysis of the faith. So a person defines what is suggested people from analysis knowledge. Education Somali is one educational backward countries. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ka salaamayaa salaanta muslimka ee ka dhaxaysa anigoo magacaygu Sayna Madaxaashay oo dhigtay iskuulka Xaari Jaamac ee ka qalin fasalka 8aad ee dugsiga hoose. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan macallimiinta iyo ardayda iskuulkeena iyo murtida sharafta leh. waxaan jeclahay inaan halkan ka soo jeediyo mowduuc ku saabsan waxbarashada iyo qiimaheeda. aqoontu waxay horaysaa xaqiiqada dhabta ah waxayna ugu hormaysaa xirfadaha faa'iido ugu horaysa ee ugu weyn. bini'aadamku waxay kaga duwan yihiin aqoonta xayawaanka. xaqiiqada waxbarashada Soomaaliya waa mid ka mid ah laf-dhabarka adduunka iyo waddanka. aqoontu waa shayga ugu muhiimsan sidaa darteedna waxbarashadu waa shayga ugu muhiimsan adduunka oo dhan waa furaha nolosha hadaliyo dhamaantii waxaan ku waaninayaa ardayda inay bixiyaan dadaalo farax badan waa maasan ardadaas inoo soo jeediyay casharka turjaan tafsiir waxa Ingiriiska iyo fasiraadiisa aad u maasan labada arday waxaan ku xijinayaa ardada soo jeedinaysa nashiidada oo ah Caasho Faarax Cabdullaahi Cabduqaadir Maxamed Khaliif Ciise intaas oo arday ayaa soo jeedinaya nashiidada la 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 هذا معلم نعم الرجال هذا معلم نعم الرجال لا 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 هذا معلم كل خصال هذا معلم كل خصال لا 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 هامني علمني أرشدني كون الأجيال هامني علمني أرشدني كون الأجيال لا 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 صفاته حميدة وقت الأمل صفاته حميدة حققت الأمل لا 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 أخلاقه فريدة صناعة الرجال أخلاقه فريدة صناعة الرجال لا 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 خميساته
خصاله أفعاله كلها جمال ميساته خصاله أفعاله كلها جمال لا 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 waxaan siinayaa nabadoon Axmed Maxamed Takar baan siinayaa arday isagoo noo soo jeedinaya hees oo ku saabsan heestaas macallimiinta وعليها سعديو محمد عاشو فؤاد فاطمه عبد القادر مسكح دي دوني دو ملاسن موجدة ومعنكوا مسكح دي دوني دو ملاسن موجدة كلاميرتي معنيسي ماركي قرصونا كلاميرتي معنيسي ماركي قرصونا ومصباحي كاهيسو مانكا ومعيني مقدقي كميدي مرتدوح أقونتي سبرو لغام مارمي مرتدوح أقونتي سبرو لغام مارمي هموغان تاريخ ذا معلمين ياهي هموغان تاريخ ذا معلمين ياهي waxaan ku xujinayaa hadalsiinta iyo kelmad soo jeedida xafladda iskuulka dadka ka qalin jabisay xaaji jaamac primary school inaya nabadoon Axmed Maxamed Takar baan siinayaa aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo caawa xafladda tan weyn oo aad iyo ka ugu weyn oo ah mid mustaqbalka aan hore loogu arag yaka laakiin caawa aad iyo aad farxad iyo hididiilo igu muujisay xafladan oo ah xaflad uu la geliyay juhdi badan iyo dadaal badan ay geliyeen macallimiinta xaaji jaamac iyaga oo soo saaray ubad caawa u gudbaya fasalada sagaalaadka iyo wixii ka sarreeya aad iyo aad aan u mahadcelinayaa iskoolka xaaji jaamac macallimiintiisa ugu horeeya macallinka maxamed jaamac waxaan leeyahay macallin khayr allah ku siiyo dadaalka iyo juhdiga wadana halkaa ka sii wad aad baana kaaga mahadcelinaynaa waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waalidiinta la garab taagan carruurtooda sidii ay wax u bari lahaayeen aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadka waxbarashada jecel oo yaka degan maanta caawa iskoolada yakood oo ah labo waxay leeyihiin fasalka 8aad ayaynu ka joognaa marka caawa ilmaha ka qalin jabinaya waa ilmaheenni inaynu magaalooyin u dirno maaha waa inaynu ku dhiiranaa sidii aynu inagu u ahaan lahayn ilaa iskoolka 12aad oo 4 maado aynu inagu u qabsan lahayn waxaa jooga dufcado fara badan oo hadda magaalooyinka ka yimi oo iskoolada sagaalaadka ilaa iyo wixii ka sarreeya dhiganaya oo reeriye ka ah laakiin xaafado kala dulsaarku ah taa yeeli mayno mar dambe waa inaynu gacanta isku qabsanaa si aynu u gaari lahayn inaynu 9 ilaa 12 fasalka koowaad ilaa fasalka 12aad uu helo yaka dhammaanteed marka arinta ila ballan qaada anna waa ballan qaadaya insha Allah arinta inaynu guntano u dadaalno isku xirno ayaa leenoo baahan yahay maanta caawaynu aragnaa juhdiga la geliyay ardada tan Allah khayr siiyo Allah ku guuleeyo imtixaanka kuwa khayr ka keeno oo maadooyinka meelaha sare ka gal Allah ka dhigo marka hadii kuwa kale gudbaan oo ayna ka tagaanin waxaan qoomay hadayse inoo joogan oo kuwa kale waa ku dhiiranayaan fasalada waa la isku horiyoonaya marka waxaan leeyahay waalidiinta dhammaan yakoy aynu gacanta isku qabsano sidaynu gaar lahayn intaasaan ku soo gabagabeynaya raallihan leeyahay waraxmatullaahi wabarakaatuh nabadoonka aad baan u salaamayna nabadoon Takar hadal qiimo leh uu soo jeediyay waxay dhigi jireen carabtu yuktabu bima in dahab biyo dahab ayaa lagu dhigaa waxbarashada noocaas oo kala ah oo isugu jira dhiirigelinta iyo wacyigelinta waxaan ku xojinaynaa abwaanka Maxamed Daahir waxaan u mahadcelinayaa ilaahay madashan isugu keenay mar labaad waxaan u mahadcelinayaa maamulka iyo macallimiinta iskoolka xaaji jaamac oo ay la'aanteed suurta gasheen arintaani waxaan bogaadinayaa ardayda standard 8 ka qalin jabinaysa oo gudbaysa secondary-ga iyo dugsi sare waxaan leeyahay waxaa leedihiin himilo yool iyo hiigsi dadaalkiina inuu noqon hal bacaad lagu lisay
waa inaad halkaa ka sii gudubtaaniin waxaad u gudbaysaan waa dugsi sare waxaad ka gudbaysaanna waa dugsiga hoose dhexe waxaan leeyahay cilmigu waa furaha nolosha waa iftiinka nolosha haddii aan cilmi jirin mugdi baynu ku jiri lahayn waxaad tihiin ubax soo koraya berri madaxda iyo wasiirada dalka ka jira iyo madaxweynayaasha kuwii bedeli lahaa baa tihiin insha allah waa inaadan dadaalkiina aydan qubin waalidiinta sida sharafta leh heerka idiin soo gaarsiiyey welina dadaalkooda waa inay noqon kuwa dadaalkii ay wadeen ku khasaaray ay noqdaan kuwa ku guulaystay insha allah waxaana gacanta ku haya waalidiintaas inay noqdaan kuwa dadaalkii ay wadeen ku guulaystay iyo kuwa ku khasaaraba waa idinka waayo haddii aad daro aad noqotaan inaad waxbarashada ka hadhaaniin waalidiintaasu waa wax gundahooda yaalla aad baan idinku mahadcelinayaa waxaan leeyahay maanta idinkii ardada darow awdka ah oo waxbarashada haysan ama se ka saaqiday heer baa kala joogtaan idinku waxaad tihiin ubixii soo koraya tusaale ahaan maanta madaxweynaha dalka haddii uu waddada gudbaayo oo uu arko arday waddada maraya oo dareyska waxbarashada qaba xaq waxa uu leeyahay inuu istaago isagoo ah madaxweynihii dalka ilaa uu ardaygaas ka gudbaayo waa sida sharciyanka sharaftaasaa ka taagan tihiin adduunka waayo waxaad tihiin meeqaamkii berri bedeli lahaa madaxweynaha wuxuu idin ixtiraamayaa booska uu isagu fadhiyo waxaad noqonaysaan dadkii fadhiisan lahaa waa haddii aad dadaashaanin waxaan leeyahay dadaalkiina insha allah waxaan idiin rajaynayaa inaad noqotaanin ardada starlayska ka gala top 10ka ama 10ka ugu horeeya waxaan sidoo kale leeyahay maanta caawa waxaynu joognaa xaflad qalinjibin oo standard aid ah laakiin haddii ilaahay idmo ma noqonayso standard aidkii ugu dambeeyay oo qalinjibiya laakiin hiigsi bay leenahay waxay noqonaysaa inaan dugsi sare koonfur sanadka dambeeyno qalinjibiya haddii ilaahay idmo rarikood waxaan leeyahay gacmaha isqabsada sanad walba arday baa idinka qalinjibiso standard aid ah iskoollo kale aadaanin mirihii ay macallimiinta iyo waalidiintu beerayeen macallimiin kala gurtaa waxaan leeyahay mirihiina yaan idinka guran waa inaad noqotaanin standard 1 ilaa form 4 arday iskool leh waa inaad keensataanin deegaanku deegaan weyn weeye deegaan qadiimiya weeye waqti badan bay ka jidhay magaalooyin ay ka horeysay baa jidha laakiin ka horumarsan insha Allah waxaan leeyahay waa inay noqotaa meelaha ugu horeeya xagga waxbarashada qarno waxay ku jidhaa oo aynu hoos tagno meelaha waxbarashada ugu horeeya markii deegaanada Soomaalida la fiiriyo laakiin waxaan leeyahay hadda kadib waa inay noqotaa iyaga meelaha ugu horeeya waxbarashada oo loo soo aado dadaalkaasna innaga ayaa muujin karna anigu waxaan ka mid ahay macallimiinta deegaankan ka howlgala laakiin awoodda ma lihi anu haddii aan deegaanka oo dhan usa gacmaha isqabsan waalidiinta ardada ka tegaysa ayaan fiirin oo ay fiiriyaan in ardadooda halkan dugsiga sare ugu dhammayso haddii aynu dugsi sare helno waxaynu heli karnaa inaynu jaamacad leynoo dhagax dhigo awoodda innaga isgaarsiin karnaa iyo inaan habacsanaanta aynu iska dayno dhulka aynu naal aynu iska dayno waa inaynu noqonnaa ummad yool iyo hiigsi leh waa inaynu noqonnaa ummad horumarka doonaysa ardada tan quruxda badan ee maanta iskoolka Xaji Jaamac ka qalin jabinaya waxaa dadaalka Ilaahay ka soo gaarsiiyay waa waalidiin iyo macallimiin saacad kasta u helana waxaan leeyahay waa inay noqotaa Xaji Jaamac sanadka dambe aan ka soo qayb galay soo fanfoor u qalin jabinaya haddii Ilaahay idmo waayo horumarka idinka isgaarsiin kara idinka halka isgaarsiin kara iskoolada iyo koosuuna wadanku sheegay waa labada iskool bay standard aid bay ku joogaan oo wax laga qurux badan yahay runtii waa inaynu dugsi sare helnaa waa inaynu fanfoor helnaa waa inaynu hiigsi yeelnaa oo ummad isku duwan oo gacmaha haysatan noqonaa aad baan ugu mahadcelinayaa maamulka iyo macallimiinta ugu horeeya Ustaad Maxamed Jaamac sida dadaalka ay u wadaanin waxbarashada dabcan iskoolkan 2018 baa la asaasay maantana waa aragtaan standard aid ba ka qalin jabinaya waa horumar ما شاء الله aad baan ugu bogaadinaya hadii ay macallimiintaas waqtigooda u horan oo ay waqti gelin oo ay saacad kasta ardada garab taagnaan waxay ahaan lahayd inuusan maanta meeqaamka uu taagan yahay uusan taagnaan waxaan leeyahay insha Allah dadaalkaasi laba aad baad ugu mahadsantihiin waxaan u yeereynaa oo siinayna macallimiinta kamid ah macallin ka howlgala tuulada macallin Cabdi Wali baan u yeereynaa waxaan u maleynayaa anigu markaan ka imi xaqiiqatan waxbarashadu aad bay u hooseysay aniga iyo maaragtay macallin Maxamed wax yar baan soo kala horeynay hal iskuul buu ahaa yaka ay ahayd maantana alxamdulillah rabbil caalamiin waxa weeye standard aid ayaa maaragtay markii labaad xaflad loo dhigayaa
marka waa arrin runtii lagu farxo arrin aad loogu farxo weeye waana bogaadinayaa cilmigu waxa weeye wuxuu maaragtay baabi'iyaa mugdiga qofku marka uu wax barto iyo marka uu maaragtay uusan wax baran waxa weeye waa guri mugdi ah iyo guri isku xiran yahay labada marka midka ay muhiim tahay in lagu noolaado waa midka ifaya al-ilmu nuurun ilaahi subhanahu wa ta'ala cabsidiisana wuxuu ku sheegay inma yakhsha allaha min ibadihi al-ulama ilaahi waxa ka cabsada oo si dhaba uga baqa adoomada u cilmiga leh marka cilmigu runtii wax la koobi karo maaha mana uu dhamaanayo waxa weeye mar walba waxa lagu jirayaa qofku inta uu fursad u helayaba qalin bedelasho ayuu ku jirayaa dugsiga sare jaamacad master PhD saas u wadaya waxa weeye waa cilmi inta uu maartay aad nooshahay waad u baahan tahay cilmiga waxa weeye ardayguna waxa weeye runtii waa ubax soo baxay weeye wuxuu u baahan yahay marka ardayga in la barbaariyo oo cilmi lagu barbaariyo ruuxantii alxamdulillah rabbil aalamiin ciyalkan waxa ku dadaalay carruurtan maamulka iyo waalidiinta sida ay maartay odayaashii ugu horeeyay macallimiinta ay sheegeen waxa muhiim ah sidii loogu dadaali lahaa oo deegaanku ugu dadaali lahaa ilmaha xaafadaha la erginayo in lagu hayo guryahooda oo ay maartay deegaankooda ka helaan dugsi sare sidii looga heli lahaa arintaasna waxa uu istaagi kara waxa weeye waa deegaanka ayaga ayaana laga rabaa waxaan iyadana mar labaad dhiiri gelinayaa arintii gudoomiyuhu uu ka hadlay qof walba oo qaangaar wuxuu xaq u leeyahay inuu codeeyo arintaas waa inaan qalbiga ku hayno codaynta dan fara badan ayaa inoo ku jirta waayo waa masiir waa wado hor leh oo inoo soo baxday weeye hadii aan nahay shacabka Puntland marka taasna insha Allah taala waa dhiiri gelinayaa waana idin wada salaamayaa maamulka macallimiinta iyo waalidka iyo marti sharaf saba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ustaadka Allah abaal mariyo si fiican buu noo soo jeediyay kelmadiisa waxaan ku xijinayaa waxa way salaadiintan wadaya سلطان عبد القادر عمر العلمي وان كحجنايا او كلمتيسا كديبانايا حفلدا قلنجبينتا ardada fasalka sideedaad una gudbeysa fawanka ma sha Allah ardayda inoo gudbeysa dugsiga sare waxaan leeyahay cilmigu aad buu u baaxad weyn yahay waxaana lagu tilmaamaa sida badda oo kale marka waxaad u gudbeysaan waa furihii cilmiga albaabkii baad ka soo gasheen ilaa heer jaamacadeed baa la rabaa marka insha Allah taala marihii la beeray waxaan idinkula dardaarmayaa inaydan baabi'in urdunkaas soo baxay laana waxa way waalid baa idinku tabcay iyo macallimiin uu horeeyo ustaad maxamed jaamac Allah barakeeye waxa la rabaa ilaa heer jaamacadeed inaad sii socotaan insha Allah taala hadda anagu ducadaan leenahay qolada dhaqanka waa idin ducaynaynaa Allah idin barakeeyo markoowaad iyo mar labaadba sida kale oo hadda gudoomiye ku-xigeenka tuulada iyo macallimiinta iyo kulliba ay ka dhawaajiyeen isdiiwaangelintaana waa muhiim qof kasta oo gaaray da'dii codaynta inuu qaato kaarkiisa codaynta si uu u gaaro madaxweynihii uu dooran lahaa iyo xisbiga uu dooran lahaa kulliba marka insha Allah taala dhammaantiin waxaan idin leeyahay mar koowaad iyo mar labaad ba Allah idin barakeeyo cilmiguna waa nuur jahliguna waa dulaam jahliga halala diriro mirihii la beerayna yaan la baabi'in wasalaam wa rahmatullahi wa barakatuh aad maasan yahay waxaan ku xijinaynaa nabadoon maxamed faarax muuse ayaan ku xijinaynaa nabadoon ku soo dhaw kelmadaas ay soo jeedisid bismillaah waxaan leeyahay bogaadinaya arday qalin jabinaysa waxaan leeyahay ardayay waxayna gashay tacab badan waxayna geliyay juhdi badan bayna gashay waxayna geliyay waalidiintiina iyo macallimiinta oo iskaashaday waxa la rabaa inaydan cidada ku qubin oo aad sii wadaan waxbarashadaas waxaad u gudbaysaan waxa ka soo gudubteen dugsiga hoose dhexe xajaamac waxa u gudbi doontaan in Ilaahay idankiis dugsi sare u gudbaysaan waxa la rabaa marka inaad samaysaan dadaal ee idin qubin waxbarashadii hore
ay idinku soo barbaariyeen macallimiinta iyo waalidku juhdi badan iyo dadaal badan ay ku bixiyeen waxaan rabaa inaad halkaa ka sii wadaan ilaahay idankiis waxaan idinku ducaynaynaa ilaahay inuu inuu fuudeeyo imtixaanka inuu sugaya istadarlayska ah ilaahay inuu inuu fuudeeyo oo ilaahay aad ka mid noqotaanin ardada ugu sarraysa si aan ugu helo deegaankan yaka magac si loogu helo ilaahay waxaan ka baryaynaa in aad noqotaanin kuwa ugu sarreeya centralayska ardada soo baxaysa ee Puntland ka soo bixi doonta insha Allah billahi kariim ba ilaahay inay ka baryeen Allah inuu ku guuleeyaan leenahay ardada way Allah inuu ku guuleeyaan leenahay waalidiinta waxaan leenahay ku soo tagay ardadaas ee maanta heerka soo gaarsiiyay hawlka badaal waa hogadii wili hawsheeni kama dhamaan waxa la rabaa inaad dadaalkii mid ka badan aad ku sii bixisaan ilaahay idinkiisa idinkana waxaan leenahay jasallahu khayra jasa Allah inii fuudeeyo ilaahay idinkiisa macallimiinta mar labaad iyo maamulka waan balyeena waan mahadnaqaynaa soo barbaariyay halkaas soo gaarsiiyay maanta ilaahay baa suuro geliyay iyaga sabab u noqday in ay ka qalin jabiso tuulada ka Xaaji Jaamac iskuulka Xaaji Jaamac taafadii labaad ee u gudbaysay dugsi sare ee Sandaayr ka qalin jabisay iyagana khayr Allah siiyo idinkana waxaan leenahay dadaalka halkaas ka sii wada aqabado badan baan ka horyimi waa ka soo gudubteen ilaahay idankiis haldana waxaan leenahay dadaalka halkaas ka sii wada kelmadahayga waxaan ka faa'iideysanayaa waxa socda isdiiwaangelin baa socota isdiiwaangelinta socota oo ka socota deegaanka yaka waa wax magaceena soo saaraya waa wax kor noo qaadaya waa wax aynu inagu kaga hormarayno deegaamada kale deegaanka oo dhan baa wadaaga cid gaar u leeyahay ma jirto dhammaantiin waxaynu ku wacyigelinaynaa in aad ka qayb gashaan inta gaartay da'da 18 ama da'da diiwaangelinta u ogol yahay dastuurkeena Puntland u ogol yahay inaad ka qayb gashaan insha Allah billahi kariim baan dhammaantiin ilaahay idankiis aan ku wacyigelinaynaa waa ku soo baxaynaa ilaahay idankiis deegaanku waa ku hormarayaa magac baan ku helaynaa dhammaanteen waa ku guulaysan ilaahay idankiis waxaan deegaanka iyo ka faraya dhammaantood maanta waxa qalin jabinaya oo ka soo baxay hoose dhexe dugsiga Sandaayr waxaan leeyahay aan dadaalo oo samaysano uga gudubno dugsi sare inaan diyaarino si caruurteenu ayna u aadin meelo kale ee uga gudubto marka ka soo gudubto hoose dhexe ay u gudubto dugsi sare oo inaga gurigeeniya ilaahay idankii dadaalka waxa raba inagu in la nimaadno inagu haday la nimaan oo inagu ayna dadaalin cid inoo keenaysa ma jirto dadku waxa la yiraahdo wax qabso wax ku qabtay horta in wax bilowno inagu oo dadaalka la nimaadno ilaahay idankiis dhammaantiin وين السلام يا كسوق وجياشة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام ورحمة الله وبركاته. نبضون أبو ما صنتهاي جزاك الله خير الجزاء وأحسن الله إليك وتوكل الله وأربع بكرات. وعن ويا سوى كل الريان ويه هذا سوجدين تا مرشرف نوتيمي سوجدين كلمة دودا وعن ويا يا الأستاذ الدكتور البروفيسور محمود نحيري يومها يقايها بدن أرداد فصل كسيدات دكسيجا حاج جامع مقالة ياكا إلهي دنكيس وحن وبريايا إن إلهي كقوليو امتحان كسنترلايسكا إن شاء الله قول فرحد يرين يعني إلهي دنكيس ورجينينا أنت كذب العلم النور وجهل الظلام كاد معلم أن يكون رسولا ومعلم فيه تبجيلا انت اسكدب علمك هو نور معلمين توين لو استاغا maxaan ku leeyahay reer yaka waxaad haysataaniin macallimiin iyo maamul fiican waxaan idinku boorinayaa inaydan iska sii dayn macallimiintiinaas ardadiina waa aad baan ugu faraxsanahay waxyaabihii ay noo soo bandhigeen iyo cilmiga ay soo bandhigeen ay macallimiintood bartay waxaan kale u mahad celinayaa mar labaad maamulka macallimiinta iyo waalidka juhdiga faraha badan ku bixiyay waqtigu waa ciriir buu inagu yahay rag badanna waa iga dambeeyaan inta ayaan ku soo koobayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
الله كأبال مريك المدة ونسو جدي قيم كأه waxaan ku xijinaynaa nabadoon caawil cali ciga faahiye baan ku xijinaynaa si uu soo jeediyo kelmadiisa aniga xaawo farxad aad u weyn baan qabaa sababtoo ah da'yar maanta wax baratay oo halkan waxyaalo badan inuu ka soo jeedisay ayaa jirtay waa wax lagu farxo qofkii aqoonta wax ka fahmaya aad buu ugu farxaa qofkuna aan aqoonta badan lahayn ama iska jaahilka ah ma fahansana arrinta aad iyo aad baan horta ugu hambaliyeynayaa dhalinyarada yar ee fasalka 8aad maanta ka qalin jabinaysa ee dugsiga sare u qalin bedelanaysa waxaan leeyahay waxbarashadina aad ugu dadaala macallimiin fiican baa waxayna bartay waa in ka muuqataa waxyaalaha soo jeediseen baa laga garan karaa waxaan in ku boorinaynaa dugsi sare ayaa u socotaan inaa kaalmo fiican ka gashaan ilaahay idinkiisa ayaan in ka baryaynaa waxa weeye kuwa in ka yar in ka hadeerta ayaguna waxbarashada ku jira aan weli fasalka dugsi dhexe iyo aan ka bixin aad bay idinka inagu dhiirigelinaysaa sida aad maartay heerka ka gaadhaanin tuuladan yakana aad iyo aad bay horumarsan tahay laba dugsi baa ka furan oo dugsi hoose dhexe ah waxa weeye waxbarasho fiican ayaa ka socota macallimiin fiican ayaa ka jirta aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa macallimiinta iyo waalidiinta juhdiga badan geliyay ee da'yarta inay wax bartaan ku dadaalay aad baa u mahadsantihiin walaalayaal halkaa ka wada kuwa yaryar ee xaafadaha jooga waxbarashada ha loogu dadaalo oo horey ha loo keeno si ay aaminka wax u bartaan adduunka horumar waxa lagu gaaraa waxbarashada aqoonta saasaa lagu kala tagaa innaga gobolkan karkaar waxbarashada aad iyo aad buu ugu sarreeyaa innaguna hadda waa ka mid baynu nahay insha allahu inaynu halkaa innaguna sii gaarno ayaa loo baahan yahay walaalayaal gacmaha in la isqabsadaa loo baahan yahay waxbarashadu aad iyo aad bay qiimo u leedahay ninkii garanaya ayaa garanaya waxa weeye waxyaalo mugdi wax badan baa caawa laga soo sheekeeyey odayaashii ismadii nabadoonnadii halkan aad bay inay ku dhiirigelinayaan waxbarashada waa aad iyo aad bay qiimo u leedahay waxaa kaloo hadda socda waad ogtihiin waa ku celcelinaynaa inaan ku celcelinana waxaan rabnaa dadku inay isdiiwaan geliyaan dad badan baa ku nool innaga waa inay ku cusub tahay habkan maaragtay isdiiwaangelinta ama asxaabtu waa inay ku cusub tahay waxaynu marka u baahannahay dhammaanteed dadka xataa kuwa miyiga jooga oo inuu ku dhowdhow oo soo gaari kara inay isdiiwaangelin ayaa loo baahan yahay arrintaa aad baanu ku dhiirigelinaynaa inaad ma garanaysaa isdiiwaangelisaan ayaa loo baahan yahay horumarkiinaa ku jira haddii magaaladiinna 2,000 ay maanta ka diiwaan gasho dee waxa laga yaabaa magaalooyin kaleeto baa ka horumaraysaan waxbarashada wax walba waad helaysaan waxaan leenahay waxbarashada dowladda Puntland juhdi badan bay gelisay waxbarashada aad bay ugu dadaashaa macallimiin fiican inay iskoolada iyo waxa wadaan ay jecel yihiin kormeer badan bay sameeyaan waxaan leenahay waad aragtaan dugsi sare magaaladan u baahan tahay meelo kale inay aadaan iyo waxa ka fiican inay iyagu helaan dowladda iyo cidda khuseysaba waxaan rabnaa inay kala qayb qaataan bulshadu waa isku tashanaysaa dugsiyo inay dhistaan aad iyo aad bay u rabaan dib bay isugu noqonayaan maamulkooda magaalada odayaashooda haweenkooda aad iyo aad bay waxbarashadana u rabaan ciddii ka saacidi kadhana waxaan leenahay aad iyo aad arrintaa in laga saacido ayay u baahan yihiin waana mudan yihiin arrintaas ayaan aad iyo aad ugu soo dhaweynayaa dhammaantiinna waa inii mahadcelinayaa ka soo boqolayaasha xafladda ardadii maanta halkaa ee ka qalin jabinaysa oo dugsi sare u gudbaysana aad iyo aad baan ugu ducaynayna insha Allah ilaahay idinkiis ku guuleysta Allah idin ka dhigo waa mudantihiin idinkuna dadaala inta ka hooseysaan dadaalkaas la idin kara idinkana insha Allah rahmatullahi wa barakaatuh nabadoonka aad u mahadsan yahay waxaan ku xijinaynaa kelmadda siinaynaa qaybta dhalinyarada iyo waxa weeye waxay soo jeedinayaan kelmadahooda ku saabsan xafladda si ay inuu soo koobaan waqtiga ugu dhacay waxa u yeerayaa gudoomiyaha dhalinyarada Liibaan Ibrahim Xasan Gurey liibaan mashruuc waxaad weynayaa runtii oo indhodoogsinaya inaan ka soo qayb galo dhalinyarada qalan jabinaysa oo runtii quruxda iyo shacniga iyo wanaagga ka muuqda aan u jeedo oo waxaan aad ugu mahadcelinayaa runtii oo haysta oo helay macallin aad ugu heelan oo aan leeyahay reer yakood waxaad hesheen macallinkii macallimiinta runtiina u qalma macallin ustaad maxamed jaamac cawil waxaan leeyahay ustaad khayr allah ku siiyo jazaaka allah khayr
intii hore aniga iga horreysayba hadalkii dowladdiisa tiri waxaan la hadlayaa ardayda qalan jabisay oo runtii istaantanaydka ka gudubtay haddeertaana u gudbaysta foonka foon 3 foon 4 waxaan leeyahay arday hamoodinina inaad iskoolka dhammayseen oo dhalinyarada waxaanu ku naqaanaa runtii marka la yiraahdo waa qalan jabiseen waxay ismoodaan inay iskoolkii dhammeeyeen ma dhammayna hadda waxa bilowdeen iskoolkii rasmiga ahaa waxa ka soo baxdeen iskoolkii rafka ahaa iskoolku waa 3 afaraad weeye waa afarta hore afarta dhexe iyo afarta sare waxa ugu adag marka oo runtii la sooran karaa waxaad ku noqon kartaa nin karmeed waa afarta sare weeye afartii sare marka idin hadhay hamoodinina inaad iskoolkii dhammaysteen laakiin waxaad dhammaysteen uun keliya labadii afaraad iskool hoose dugsi hoose iyo dugsigii dhexe waxaad u gudbaysaan dugsigii sare waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin markaan ka sheekeeyo jahliga waalidka ilmihiisa waxbara iyo waalidka aan ilmihiisa waxbarin runtii wiilbaa hooyadii waxay u dirtay ardo waxay ku tiri hooyo orod quraanka soo baro quraanku wiilku dhigan jiray hooyadiina islaan jaahilada bay ahayd markaasuu wuxuu yidhi maxaad ka soo baxday bay tirmaanta iiga warran wuxuu ku yidhi hooyo intaan quraankii cama ka qaaday baa yatasaaluun ku geeyey maanta bal fiiri cama yatasaaluun waa aayaddii oo isla aayaddiiya wuxuu hooyo intaan cama ka qaaday baa yatasaaluun ku geeyey saytir hooyo aad baa u mahadsan tahay wax walba waa siis marka waxaan odhan lahaa waalidkuna ma aha inay runtii carruurta ku sii daayaanin waxbarasho la'aanta waxaan jeclahay aad baad mahadsan tihiin dhammaantiin khayr baan idin rajaynaya wasalaam waraxmatullahi wabarakaatu aad buu salaamaya waxa weeye gudoomiyaha dhalinyarada oo aad waxa weeye kelmadiisa u soo jeediyey waa soo koobaynaa insha Allah waxaan ku xojinayaa haddana waxa weeye wali way socotaa dhalinyaradii waa socota rabiile cabdulaahi baan ku xojinaynaa oo loo yaqaano caato waxaase laynu ka baahan yahay hadday qurux tahay iyo hadday tahay ilaa waa ambeerka beelay dadaalaba waa laynoo sheegay hadday arday nahay iyo haddaynu waalidiin nahay intaba laakiin waxaa laynoo ka baahan yahay inaynu weelayno inaynu gudidno inaynu ogaanno inaynu xasuusnaanno wixii macaanaa oo laynoo sheegaayey ardayda waxaan leeyahay arday insha allahu inta haddeer fasalka sideed u gudubtay ma inta waxaa hadhay intii badneed waa hartay oo waxay ku jiraan fasalladii kale waxayna idinkaga dayanayaan sidaad yeeshaanin marka waxaan kula dardaarmayaa haddii lahaa idmo inaad yeeshaan sida u qurux badan oo macallinta sharaf u ah oo inaga sharaf noo ah oo ardayda sharaf u ah oo horey socotaan oo heer jaamacadeed gaartaanin oo ardayda maanta u qalin bedelanaysa fasalka koowaad ee dugsi sare marka hooyooyinka xoogga geliyey aabbayaashaan ka mid ahay oo ma dadaal badnin laakiin hooyooyinka waxaan kula dardaarmayaa hooyo walboy sidii wiilka arutaadu ay ugu bedelan lahayd wiil haadana gabar ha ahaadeene fasalka sideedaad waa inaad ka shaqaysaanin waa inaad u qadaanin waa inaad u arradnaataanin waa inaad ilaah u gaajootaanin si aad uga bixisaanin fiiga iyo ilaah haddii lahayd maayahay labiska iyo haddii lahayd maayahay waxay cun lahayn iyagu waa inaynu middaas haddii lahayd maynu kula dardaarmayaa inaynu sidaa yeelo haddii lahaydmo waana salaamayaa hadalkiina intii qurux badneed dadka hore yiri Allahu barakaatu aad ma salaamayna professor Caato waxaan ku xojinaynaa nabadoon afwan waa iska dhamaatay halkaas ku dhamaatay hadjeedintii marka waxaan ku soo jeedinaynaa marti sharafta kale oo ka soo qayb gashay xafladda qalinjabinta fasalka 8aad una gudbaysa fasalka form 1ka waxaan ku soo xojinaynaa nabadoon Haashin Cabdullaahi Faahiye baan ku soo jeedinaynaa nabadoon ku soo dhawow kelmaddaas aad u soo jeedisay intiino waa salaamantihiin salaanka bacdi waxaan la xoojinayaa hadalkii uu handaayo soo jeediyey nabadoon Takar reer yakow idinku aan iskool isu kala qaadin waxaad ku dadaashaan sidii aad uga yegleeli lahaydeen iskool sare
tuulada yaka iskool sare sida aad uga yegleeli lahaydeen waxaannu baadi dooni doonnaa haddii rabbiga idmo oo aannu cidda ay khusayso aannu kala hadli doonnaa in laydinka saacido macallimiinta qaybtood baannu cidda ay khusayso ka baadi dooni doonnaa haddii ilaahay idmo hadda tartan baa lagu jiraa xisbiya badan baa tartan ugu jira magaalada yaka diiwaangelin baa ka socota kaga faa'iidaysta inaad heshaaniin macallimiin in mushaharada laydinka bixiyo in wasaaradda ay idin mushaharada idinka bixiso 2 macallin 3 macallin ka baadi doonta annana waan idinla dadaalayna wadala baadi doonayna haddii ilaahay idmo idinna dhexda u xirta inaad dugsi sare yegleeshaaniin hadda dawladdu waxa ay ballan qaaday fasal inay dhisto fasalkaas kaga faa'iidaysta macallimiinta oo iyadana noo soo raacay dhaha haddii rabbigay idmo dadaala oo dhexda xirta waxbarashadu waa shay muhiim ah khaasatan reer yako waxbarashada waxa dadka ka reebay oo dadkan waxbarasho la'aan weeye kii waxbartay ummaddiisu dhinac ka raacay dhallinyaroy dadaala dhexda u xirta ha noqonina dad nolosha ka dhacay qofku hadduu nolosha ka dhaco si kastuu u qurux badan yahay si kastuu u joogdheer yahay si kastuu reer adag uga soo jeedo waxba ma noqonayo hadduu qofku nolosha ka dhaco ku dadaala inaad waxbarataaniin waxa ayaan darro ah aniga idinla hadlayaa dugsi dhexe baan kaga tegey waxbarashada haddii maanta caqliga ugu jiri lahaa waagaan jaaniska u haystay inaan waxbarto kama tageen ee waan sii wadi lahaa idinku hadda waxaad haysataaniin waxyaalo badan oo anagu aanan haysan oo hadda aan halkan ka sheegayn baad haysataan macallimiin idin heelan baa haysataan macallimiin aan idin cusurilayn baa haysataaniin arday aan idin cusurilaynayno aan idin dhahayn waa reer hebel baa haysataaniin waa laga gudbay xilliga annagu aan waxbaranaynay xaqiiqatan markaan idiin sheego fasalka waa ka takornaan jirnay waxaad samaysaan waxbarta oo dadaala oo maanta kuwa qalinjabiyana dadaalkooda ha sii wadeen kuwa waxbarashada ay u dhiman tahay oo aan qalinjabin welina ha sii wadeen dadaalka soo dhawaynaynaa waalidiinta qaarkood oo iyaguna waxa waaye soo jeedinaya kelmadooda waalid baan u yeeraynaa ka mid ah waalidiinta tuulada oo ku hadlaya hooyooyinka ubadka dhalay waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin boqolkiiba boqol waan idinka mahad celinaynaa sida quruxda badan ee aad noogu soo gacan qabateen ee aad noo horumariseen annaga iyo ubadkayagaba maasantahay maasha allah allah barakeeyo waxaan ku soo dhawaynaynaa haddana waxa waaye kelmadna siinaynaa insha allah ustaad alcabaas baan u yeeraynaa si uu waxa waaye kelmadiis u soo jeediyo ustaad ku soo dhawow xafladdan aan isugu nimidna waa xaflad qalinjabina oo fasalka 8aad ee raggii hore say wax u sheegeen oo ahayd waxbarashadu ma dhammaato 4 heer ay marto 12 heer ay marto 4 iyo 4 12kaas waxaa u bilaabmay 4tii sare hadal badi maayo maadaama dadku hadal badan ay sheegeen waxaan leeyahay halkaa ka sii wada waxbarashada iyada waalidka iyo dhammaan dadka ka soo qayb galay odayaasha ugu horeeyaan waxaan leeyahay dadka ayaga ah ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u fududeeyo duco aan ugu daro wax badan baa la sheegay marka ducada iyadaana ha lagu soo gunaanido hadal badan hama buuxsho inta ma ku soo koobay salaamu calaykum waxaan ku xijinayna arday waxaan ku xijinayna insha Allah hadii lahayd moo marti sharaf kale iyo macallimiinta kadibna waxa weeye waa soo xiriirnaa waxaan noo soo xiriiraya ee suldaanka waa soo gabagabeynayna waxa u yeeraya macallimiinta waxa weeye deegaanka oo waliba ardada hadda qalin jabinaysa macallimiintii wax soo badhay oo juhdi ku bixisay oo dadaal ku bixisay
oo waxa weeye halkaas soo gaarsiiyey baan u yeeray macallimiinta macallin Khadar baan u yeerayaa si waxa weeye uu kelmadiisa u soo dhaho inuu soo koobo aan iskuulku maxaaday yani uu soo maray jaranjarooyin fara badan maantana uu maray insha Allah taala meesha ugu fiicneed waxa la rabaa insha Allah taala in dadaalka maxaaday halka laga sii wado oo la sii joogtay insha Allah taala ka macallimiin ahaan iyo ka maxaaday arday ahaan iyo ka waalid ahaan iyo ka maamul ahaanba in maanta halka la taagan insha Allah taala laga sii talaabsado oo ardayda maxaaday maanta aan sagootiyeen maxaaday aydka in loo duceeyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ku guuleeyo maxaaday imtixaanka waxa weeyaan runtii juhud fara badan iyo dadaal fara badan macallimiinta maxaaday ila dhiga yaanigu waan ku bixinay bacda Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa mahadle inta ka bacdi insha Allah ta'ala waxaan halkan maxaaday uga hambalyeynaya ardaydaas oo maanta maxaaday insha Allah ta'ala mustawihi maxaaday yani ay iskuulkan maxaaday kaga gudbi lahaayeen oo u gudbi lahaayeen maxaaday dugsi sare insha Allah ta'ala maxaaday maanta taagan hadalka ma dheeranaya insha Allah ta'ala barnaamijku waa gabagabo waxaan halkan dhamaan maxaaday uga mahad celinayaa maxaaday dhamaan maxaaday marti sharafka ka soo qayb gashay oo leeyahay insha Allah ta'ala ardayda inaad maxaaday insha Allah ta'ala u ducaysaan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala inagu garab galo maxaaday ayaan maxaaday idinka codsanayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam calaykum waa mahadsan yahay al-ustaad waxa waaye aad u mahadsan yahay ustaad Khadar waxaan ku soo dhaweynaynaa macallimiinta saxsanina macallin waxaan ku soo dhaweynaynaa macallin daahir ma ku soo dhaweynaa si kelmadiisa u dhaho أنا هرينا الله مهل والله هاللي وحي هذا الكنت مرتد لهيد أما روح على هيد وحكى هاللي دتك يجوه رأيي صلاة دينتي يا نوضون ذي يا مرت شرفتي كلا كسوق بقشي أيا كهذا الشيء وحيران وحكى هاللي يا علمي يا أقونتو فائدة إلى ذي أنت كبعدي aqoontu waa furaha nolosha haddii uu soo qofku aqoon barana guriga haddii uu furo la'aan yahay uu qufulan yahay lama geli karo aqoontu marka saasoo kale qofka ugu tahay noloshiisa fure qofka hadduu uusan wax baran noloshiisa way qufulan tahay la'aanna mugdi bay ku jirtaa waxaa la yidhaahdaa cilmigu waa nuur jahliguna waa mugdi ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nuurka ina geliyo qalbigeena geliyo ardayda yaryar ee wax baranaysa iyo dhalaanka wax baranaya ilaahay inuu qalbigooda nuurka aqoonta ay leedahay uu u furo ardayda sideedaadkana oo maantay sideedaadka una gudbaya dugsiga sare maantana imtixaanka galaya sabtida uu bilaamayo in ilaahay imtixaanka u fududeeyaan ilaahay uga bareynaa rabbi subhanahu wa ta'ala taasoo uga bareynaa wax yar waxaan ku noqonayaa haddii rabbi ku idmaayo tuulada iyo aqoonteeda maanta waxaynu joognaa waxaa qalin jebinaya sideedaad fasalka sideedaad ayaa qalin jebinaya maadaama uu qalin jebinayo waalidka iyo ilmuhu inay kala irdhoobaan waa laga fiican yahay reer yaka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku boorinayaa in aynu gacmaha isqabsanno sidii dugsi sare aynu u furan lahayn ayadoo dee waalidka iyo ilmuhu aysan kala irdhoobi karin waalidku ilmuhuna wuxuu wax ku baran karaa inta badan gurigooda guriga hooyadiis iyo gurigooda ayuu wax ku baran karaa insha allah waxaan leenahay taas aynu gacmaha iska qabsanno sidii aynu dugsi sare u furan lahayn waxayna diiwaangelinta codbixiyayaasha waa fursad maantay ina soo martay haddii aadan ka faa'iidaysanna jaanisku dhaafaya way 5 sano ka bacdi masna kuu imaan doona waa in laga faa'iidaystaa fursadda waa xaq aa lahayd oo ilaahay kuu soo celiyey gurigaagu kugu yimid inaad cod bixisid ciddaad doontid oo dantaada ka aragtid aad is oran kadhid dantaada ku jirta waxbuu qaban karaa inaad dooratid marka xaq aa lahayd oo muddo badan kaa maqnaayo kuu yimid weeye waa inaynu ka faa'iidaysanaa dhammaanteen si aynu u dooranno ama aynu uga qayb qaadanno birri cidda ina matalaysa ama cidda birri hoggaanka inoo qabanaysa aynu ka fiirsanno qofka aynu hoggaanka u dhiiban doono insha allah biidni illaahi alkariim anoo hadalkaygu badnayn inahaas ayaan ku soo koobayaa
macallimiintahan iskuulka murtida lehey ilaahay baa mahadale waana maamusheen macallimiintahan iskuulka murtida lehey ilaahay baa mahadale waana muujiseen dhalinta waaye helka ubadka wax noo barteen tacliintiina hay dadweynu ku tiirsadaan taladu waa tii rabbiye waana toosiseen iskuulkani horumar weeyo rag baa u halgamay iskuulkani horumar weeyo rag baa u halgamay oo dowlad lama kaashan oo dollar kuma hamiin waxaase higsigoodu yahay waynu horumarnaa higsigoodu yahay waynu horumarnaa dadweynaha reeryako waxaan idinka digay cilmi la'aan iyo cadow baan idinka digay dadweynaha reeryako maan danaysanaa tacliinta laynoo ku deeqayo doonanaa cilmiga waa loo haraadayo lama hagrado tacliinta waa loo dadaalayo lama dibdhigo habeen baan kaga jirnaaye hurdada ka kaca tacliintu waynaga danteene hadiidinina waan ducaynehe allow daayinaga aqbalo dulmina geli maynoho daacad baanu nahay xaqii daboola allow dahanooga fayd ubadku waa u bixi daalkeedna daadahshaan idan ilaahay tacliinta ay noo bartaan oo waalidiintii ku hawshootay ku hormartaa macallimiintii waxbaray ay u mahad ceshaan bismillaahi siinkii allaan ku furay awalu bismillaahi siinkii allaan ku furay asmaamul xusniga ilaahena marka weyn asmaamul xusniga ilaahena marka weyn idilka jaamaca alquraanka oo dabad idilka jaamaca alquraan oo dabadan idan ilaahayna xafladan lagu wasaasidan waxaanoo sooba duulooda leerka yimi waxaanoo sooba duulooda leerka yimi caqabadiinaga dulqaadooda nooga go'ay caqabadiinaga dulqaadooda nooga go'ay macallimiin miigan iyo maamuloo fadhiya macallimiin miigan iyo maamuloo fadhiya ugaaskoonoo ducaynaya gelin kastaba tolweynoonoo codaynaya gelin walbaba dhammaan hooyooyinkii waa camiran yihiin dhalintii oo idil runtii eegan bay yihiin suldaanadii waa yimaadeen daacad bay yihiin daniyo duud iyo duriyad waa isku duubanaay daniyo duud iyo duriyad waa isku duuban waxaan ka hormarayaa ku saabsan hooyada waxaa looga baahan yahay ilmaheeda inay soo dhisto waxa waaye akhlaaqdiisa iyo suluubtiisa guri ku soo dhisto hooyadu waxaa la sheegaa inay tahay dugsi al-ummu madarisa hooyo waa dugsi laga soo baxo dilka laguu sheega ilmaha la dilaayo lagama keenin waxa weeye macallinku inuu dilka ku bilaabay dilka waxaa laga keenay hooyada lambar 1 guriga ku soo dashay ilmihii oo larbisan oo la soo garaacay oo la soo tumay oo sidii loo lahaa ilmihii dhisan baa macallimiinta lagu soo wareejiyaa ee macallinku dilka kuma bilaabo marka al-ummu madarisa hooyada markay ilmaheeda u tahay buu ilmuhu hadhow ku soo baxaa hadday hooyo tahay laga fiican yahay allaheed alla yahay waxba aan la socon korontadu ka maqan tahay ilmihii waa kharimaya daaqadu ka baxaya waxa way meelahaas wareegaya waxbarashadiisana waxay noqonaysaa galab imtixaankana 0 calaa 0 baa loogu bishaaraynaya waayo hooyo ilmaha iyada dugsiga ku dhista guriga ku soo dhista akhlaaqiyan isluubiyan marka al-ummu madarisa hooyo waa dugsi laga soo baxo laga soo qalin jabiyo kadib ilmihii oo dhisan
oo akhlaaqiyan iyo usluubiyan u dhisan baa waxa lagu soo wareejinayaa macallinkii macallinku ma aha inuu dilka ku soo bilaabay guriga ku soo garaacay ma aha hooyadaa soo bilowday macallinku waad oo soo garaacay uu noqday ilmihii waxay noqotay hooyo waxaan kale u gudbayaa ardada waxa weeye waxay galayaan imtixaanka 20 bisha sabtida afwan sabtida galaya santalayska sabtida loo fariisanaya iyagana inay sii dadaalaan inta xuurta u sii harsan ay sii muujiyaan waayo ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'a markii waxa waaye aad yaani hooyadin ka soo baxayseen uurka hooyadin aad jiifteen cilmi ma ayn lahayn maanta wayninka qalin bedeshay oo aqoonta leh oo wax qori karo akhrin kara waxna waa akhrin kadaan waxna waa qori kadaan marka waxa loo baahan in la sii dadaalo oo dadaal la sii muujiyo hooyaduna aysan ilmihi ka sii harine ay sii wado ilaa inta gaarayo heer jaamacadeed waxaan soo gabagabeynaynaa oo ku soo xireynaa nabadoonka isimka iyo suldaanka ducadiisa suldaan kamas si noogu duceeyo xafladana uu noogu soo xiro suldaan ku soo dhawow si wax way ducadaada aan aamiinta aan hoos uga boobnay sallallahu alayhi wasallam assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa salaamaya xafladan quruxda badan iyo ka soo qaybgalayaasha nooca yihiinba odayaasha isimada gabdhaha sharafta leh dhalinyarada ardada dhamaantiin assalamu alaykum warahmatullahi wa barakatuh waa qolada u gudubtay form 1 waxaan leeyahay Allah idinku guuleeyo Allah idinku guuleeyo Allah idin fududeeyo waxay ku xiran tahay dadaalkiina dadaal waa gaaraan in xaj jaamac la oran jiray lagu yiri waan maqlay dadaal waa gaar waad gaaraysaan insha Allah ha habsaamina kuwa ka dambeeya kuwa caawa qalin jabiyay kuwa ka dambeeyo sidoo kale xafladan la idinku dhigaya ka shaqeeya xafladan oo kale in la idin dhigo hadaydan soo gudbin oo soo bixin cidina xafladii dhigi mayso dadku idin bogmaayo waalid iyo walaal iyo waayeel intaba insha Allah ilaahay waxaan ka baryayaa kuwa gudbin ilaahay inuu fududeeyo kuwa soo socdo oo soo daba socdana ilaahay soo gaarsiiyo waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa maamulayaasha iskuulka sida macallimada iyo waalidka kula tacabeelay caruurtaas halkaan soo gaarsiiyay ayagana waxaan leeyahay khayr Allah idsiiyo adduuniya aakhira Allah idin gargaaro intii dhashay Allah cafiyo dhamaanteen Allah isugu keen dambi dhaafo ilaahay waxaan ka baryaa si gaar ah gabdhaha sharafta leh aad baad u mahadsantihiin khayr Allah idsiiyo baraarujiya dadka caruurtana soo saara bariyahan dambe sidii burburku u dhacay ilaa 1991 up to now hadda oo la joogo dumarka wax waday maca ragga ayaga qabay waagi hore dumarka la qabi jiray haga dumarku ayaga wax qaba raggana si fiican u qaba waagi la qabi jiray si fiican baa la idin qabay caruurtana soo gudbiya oo barbaariya iskuulka runta waa hooyada way iskuulka runta ku tabca caruurta insha Allah waxaad hore u arki jirin maad arkaysaan waxaan kale oo ku darsanayaa fursadan kaga faa'iideysanaya isdiiwaan geliya cid idinkoon u danaynay qof walba adigu danayso waxay cadaynaysaa isdiiwaan gelintanu inaad tahay Puntlander qofku hadduu wadanka uu joogo uusan sharci ku lahayn waa baadi baynu kaga baxaynaa hadda maalin hore oo laga joogo sanad ka hor baan dhalinyaro xirxiran waxaan ugu yimi Boosaaso stationka Boosaaso war maxaa loo xirxiray aqoonsi ma leeyahay oo aqoonsiga xagee ka keenayna subaxii maan kaxay waxaan dabcan aqoonsiina la soo sameeyo $30 keena nala ku yiri war xataa 30ka wayna ka baaqdo Ilaah baa inoo keenay isdiiwaan geliya oo kaar baa la siinaya warqadan weytin baa la yiraahdaa waa ku sugis kaar baa lagu siinaya magacaaga saddexan iyo sawirkaaga ku dhagan yahay Puntland inaad tahay halka ka cad station laguma xiri karo isbaara laguma xiri karo laamiga waxaad ku maraysaa nabadgelyo fursadaas ay leedahay haddaad maqasheen cid baa loo codaynaya waa qof iyo dooqa ka rabtaa dhaw codee laakiin hadda adigu danaysa cid baa u danaynay taas waxaan ku baraarujinayaa isdiiwaan gelinta ilaahay waxaan ka baryayaa dambigeena Allah dhaafo xanuuno badan baa jira kududiyaha iyo karoonaha iyo kanaacada iyo kibirka iyo kufriga Allah ina ka nabadgasho ilaahay soo keen dambi dhaafo waalidiinteena Allah u naxariisto waalidiintooda Allah u naxariisto waxa la wixii islaam Allah u naxariisto ummad islaam oo leeyahay reer Falastiin yahuud baa garaacaysa ilaahay yahuuda ha uga heliyo ilaahay yahuuda muslimka xaqooda Allah siiyo ilaahay istuso wixii wax isu qaba ha iscafiyeen dadku hadda coloosha wax isugu haya amalkooda loo gudbiyaa halkan uu ku rafaacan yahay marka amalkiinu ha gudbay iscafiya cafi alihi masaamax dhamaanteen khayr baan idin rajaynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.